waa mid raad igu reebta ardaynimadeydii waa midaan isleeyahay ragga hadda halkan fadhiya jiilkan hadda meeshaan fadhiya ama lin ama labo baa laga yaabaa inay la soo kulmeen waayo dowlad burburkeed baa la soo kulanteen lama arag dhadhanka dowladnimo ee Soomaali waxay ahayd marka qisada aan hadda farmay weydiinay waxay ahayd waxaan ka dhigtaa iskoolka dugsiga sare magaalada Burco Institute-kii farsamada gacanta ee Jarmalku dhisay marka iskoolka la xiro dowladnimadu waxay tahay markaa taan inaad dhadhamisaan waa tusaale runtii marka iskoolka la xiro waxaan u tagaa traafikada waxaan ahay arday Soomaaliya waxaan doonayaa inaan reerkayga aado waxaan deganahay Muqdisho waxaan u baahanahay inaan gaari isaatid ninka aan u imaanayo traafikada jooga haybtayda ma yaqaano ehelnimo ugu soo aadi mayo inaan reer hebel isla nahay magaceygana ma yaqaano aniga waxaan u soo aaday inuu traafik yahay markii qisada aan ka sheekeeyo runtii taariikhda noloshayda ka midka waxaa ka mid ahayd one day traabiyadii safaradii aan geli jiray safar ka mida nin baan u imi waa i qaaday meel beer la dhoo waxay u jirtaa magaaladan u malaynaya 30 kilomitir meeshuu i geeyey mootooyinkii dowladdii Maxamed Siyaad Bare xilliga traffic mootooyin cadaad bay lahaayeen mootadu aniga boorsadeeda ugu qaaday eemkiisu waa inuu gaari saaro 30 kilomitir buu kaxeeyey ku dhawaad meesha markuu geeyey buu wuxuu yiri adeer ka qadee buu yiri bushkaan meel meesha ku taal al'aana waa ka dhisan tahay bushkaas waa aqaanaa markaan wadada maray waan arkaa wuxuu yiri marka islaam meesha joogto wuxuu yiri waxa samaysaa ardaygaas wuxuu cuna si wariya hilib cun